Mujaahid Maxamed Haybe Maxamed oo ka mid ah dalada Marso ayaa maanta gaadhay deegaanka Halo oo ka tirsan degmada Sheekh ee gobolka Saaxil isagoo kormeer indha-indhayna ku soo maray wadooyinka u dhaxeeya degmada Sheekh iyo tuulada Halo iyo sidoo kale wadada tagta ceelka Faca Weyn ee Halo oo muddooyinka ugu dambeysay ee ka socotay shaqo lagu hagaajinayo wadadaasi waxaana intii uu indha-indhayntaasi ku jiray Mujaahid Maxamed Haybe Maxamed uu la kulmay qaar ka mid ah darawaliinta wata gaadiidka u kala goosha degmada Sheekh iyo deegaamada dalbeedka degmada Sheekh ee gobolka Saaxil oo shaqo ay iskood wax ugu qabsanayaan ka wada wadada u dhaxaysa degmada Sheekh iyo deegaanka Halo oo ay muddooyinka ugu dambeysay siiska wax u qabsay gaadiidleydaasi uga shaqaysanaysay wadadaasi waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay Maxamed Haybe Maxamed oo cid kasta oo wax ku darsanaysa sidii loo hagaajin lahaa wadooyinkaasi ugu baaqay inay sida ugu dhaqsaha badan uga soo qayb qaadato isla markaana lagu taageero darawalintaasi hawsha baaxadda leh gacanta ku hayaan waa arkaysaa waxaan taaganahay giftinkii garbada wadadii waa ugu yaraan waa 2 mitir iyo dhowr baan malaynayaa taako awalna waxa ahayd gebigeedu 1 mitir kal talaabo kaliya ahayd sida loo gooyay waa arkaysaan maasha Allah bay taagan tahay gudoomiye ku-xigeenka waa la socdaan dhalinyaradiina meesha magaalada waan kaga nimid guuriga gabadha meesha ka dhacday hadii maanta la islaado aas jiidi iyo gacmadii go'aan dul taaganahay daqiiqad bay iskurigad maxaan saacad gaarin bay 25 lowr ku shuba karaysa waa meel marto wanaagsan bay haystaa baabuurta hadii timaado hadii ceelka marka la sameeyo tahay hadii wax kale oo qalab macnaheedu cidda adeexda siyaarinta hadii booyidi dhaansanay tahay wadada wadadii laga dhigay ma sha Allah alxamdulillah baan taaganahay soo duceeyo imka anigu taasi gacanteedii un bay hayday hore tii kale aynu haynayna iyo ceelkii sidii loo bilaabi lahaa falowgeed hal la qabto geesta kale waxa iyaguna hadal la kooban halkaasi ka yidhi gudoomiyaha tuulada Halo qaar ka mid ah darawalinta gaadiidleyda ee aanu kula kulanay wadadaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halka aanu joognaa waxa weeye Halo wadadii cusbayd ee laga shaqeeyay marka hore wada xun bay ahayd maantana waa aragtaan caynka ay u dhigan tahay Maxamed Haybe oo ka gudoomiyaha noolaado dalka raggii u maqnaa maanta u maqnaa baad u soo noqday horaantoodii waan ku faraxnay inta dambe hadii la yiraahdo sidaas leeg inay uga shaqeeyaan maxamed ilaahay baa horta iskale alxamdulillaah rabbil caalamiin inta loo dhamay cidi telefoon isugu yiri dan naga dhaxaysan soo wada nimid dhamaatayo waxa weeyaan shalay wax ka shaqeynaa hal tabtay dar had waa laga shaqeynay maanta waxa jooga dushi dar had waxa laga shaqeynay gabagaba sii jeeda waxa weeyaan shirkado ayaa mara ama samtel haato ama telesom haato dadweynaha mara cid loo way martaa cidna wax kuma naqon cidna wax kuma naqon keena anu faradeer ku shaqeynaa waa ka digsiga galka nooga karaa rashkii waxa weey marka cid kasta waxaan ku codsanaynaa in wadada horta imika waxa jira qofku hadaan isagu ka baydhin dhagaxa wadada yaala cidna kama qaadayso wallahi bay ka taan marka dadku waxaan ku codsanaynaa dhamaan iska wuxuu qabsan wax ku wadnaa anagu be oo baabuurteedu wata halka deegidaar ka taala lacag la laguma siin nin waliba isaga qarashkiisa jeebkiisa ka bixinaya saddex habeen mar godoon ka ahay waxa weeye kii waxaystay hadii imika uu waxba keeni waayo ka kale maxaad u malaynaysaa tolmanaga caawinada shirkada aan soo garacaan hadii daawin baahayniyo halkani waxa weeye wadadii loo mariyay biyaha ceelka Halood ee Halo wadadu waxa ku dhacay nabaad guur way baabaday runtii in badan bay baabahayd oo boqolo ayaa ka go'ay daadad baa sheexay cabitaankiiba waxa ka horeeyay halkii loo mariyay inay xidhanto baabuurta iyo gaadiidka iyo dadku meel maray ciriir noqoto markii ugu horeysa waxa noo yimi Maxamed Haybe oo ka socda Marso Group muhiimad qaali ay noo leeyimi tii uu ku shaqeeyay shaqaalihii uu nagu dalbaday waan ku dirnay waan ku shaqeynay wadadii aad baan uga shaqeynay wata maanta gaadiid kasta uu maraya oo marka gaadiidku marka meeshii waa laga shaqeyn karaa ceelkiina in laga shaqeeyo la raaciyo ومحمد علي أحمد محمد كابه تلفزيون عالمي جاي بدعس مجال الشيخ قبل كسر